aad iyo aad aad u mahadsan tahay run ahaantii jahwareer xooggan ayaa ka dhex taagan shirkadda facebooka kadib markii maanta aroornimadii maanta la shaaciyey in dad ka badan 5 milyan oo ruux accounkoodii ama facebook users wax loo yaqaano afka qalaad ee bannaanka lasoo dhigay tirada rasmiga ah ilaa ay hadda la og yahay ee bannaanka lasoo dhigay waa 533 milyan oo ruux oo facebook isticmaalaysay oo informationkoodii bannaanka lasoo dhigay informationada bannaanka lasoo dhigay oo ilaa ay hadda la og yahay waxaa ka mid ah sida maaragtay idiyada ama usernameka wax loo yaqaano facebook id iyo passwordka nambarada qofka ama dadka isticmaalaya facebooka waxaa kaloo ku jira emailada xilliga qofka uu dhashay ama date of birthga waxa loo yaqaano iyo weliba haddii adiga wadamada qurbaha aad joogtid oo adress aad leedahay adresska maaragtay kuugu jiray halkaasi ilaa iyo 106 wadan ayaa saameyntaasi ay ku yeelatay dadkaasi saameynta ay ku yeelatay waxaa ka mid ah dadka reer maraykan 32 milyan oo ruux oo dadka maraykanka oo facebooka isticmaalaya ayaa xogtoodii bannaanka lasoo dhigay 11 milyanna waxa ay ahaayeen dad ku nool UK sidoo kalena markaan aan u nimaano dhanka iyo Africa waxaa ku jira wadanka aynu dariska nahay ee Ethiopia in ka badan 12 milyan oo ruux accountnadoodii informationka ku jiray ayaa bannaanka lasoo dhigay sidoo kalena waxaa ku jira Ethiopia wadanka ay dariska yihiin ee Suudaan isagana waxaa saameynta ay ku yeelatay 9 milyan oo ruux in ka badan jarmalka oo iyadana ay ka mid tahay wadamada Soomaalida ay degan yihiin waxaa maaragtay saameynta ku yeeshay 9 milyan oo ruux oo dadka reer jarmal ah in xogtoodii iyagana bannaanka lasoo dhigay kuwa oo isticmaalayay facebook in ka badan Turkiga 19 milyan ayaa iyagana xogtoodii bannaanka la keenay oo iyagana ah dadka isticmaalayay facebook shirkadda facebook ilaa ay hadda kamaysan hadlin waxaana maaragtay guud ahaan tirada marka la isku dardaro wadamada ay gaarayaan 106 wadan oo ilaa ay hadda la shaaciyey saan horey u sheegayna guud ahaan tirada guud ee wadamadaasi aan soo sheegnay dadka uu saameeyey waa 533 milyan oo ruux oo isticmaalayaasha facebook ahaa oo xogtoodii ay ka mid tahay sida passwordka ID-ga taleefanadoodii emailadoodii adresyadoodii iyo weliba adresyada ay isticmaalaan ee guryaha bannaanka lasoo dhigay hadda ka hor waxaa dhacday isla tan oo kale inkastoo ay ka duwaneed 2019 bishii January sidan oo kale xogta dadka isticmaala Facebook ayaa bannaanka loo soo dhigay hase yeeshee tiro ahaan iyo saameyn ahaanba tan hadda ayaa aad u fara badan ilaa hadda saan horey u sheegay Facebook kamaysan hadlin hase yeeshee waxaa la rajaynayaa inay ka hadli doonaan tanna waxay kaga dhigan tahay dhabarjab xooggan oo Facebook soo gaarta ilan facebooka waxa weeyaan aalad aad loo isticmaalo dad badan oo adduunka daafihiisa caanka ah ayaa isticmaalo sidoo kalena waxaa isticmaalo tv waaweyn oo caalamka laga yaqaano ayaa isticmaala xogtana waxaa lagu daawacay website la yiraahdo Hackinvarium ayaa lagu daawacay waxaana laga heli karaa informationadii oo dhan halkaas ayaa lagu heli karaa dad badanna ayay saameyn ku yeelan doontaa sida rasmiga ah hase yeeshee waxaan ka dhul sugaynaa sida maaragtay Facebook uu uga hadli doono wixii akhbaar kusoo kordhana daawadayaasha Sab TV ayaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee maqla dhacdadaasi wixii kusoo kordha